dagaal culus ayaa dib waxa uga qarxay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynihii xukunka xoogga looga wareegay waxa uu ku hanjabayaa oo markani uu hoosta ka xariiqay in magaaladani uu dib gacanta ugu dhigi doono. Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe waxa uu gabaad ka dhigtay oo doonaya in Koonfur Galbeed uu ka maamulo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. xasan sheekh maxamuud go'aano culus ayuu isagana hoosta ka xariiqay waxa uuna markani amar ku bixiyay in diyaaradaha F-16ka markaasi la geeyo magaalada Baydhabo sidoo kalena la soo afjaro ciidamada Laftagareen taabacsan ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo. haddaba muuqaalkan waxa aynu ku eegi doonaa daawadayaal dagaal kharaar oo maanta dib uga curtay magaalada Baydhabo xilligani maxaa soconaya magaaladii Baydhabo oo gabi ahaanba laga qaxayo dadkii shacabka waxa looga digay isla markaana loo sheegay in goobahooda ganacsi iyo sidoo kale guryahoodaba ay markaasi ka baxaan oo ay duleedka magaalada ay u guuraan. caawa magaalada Baydhabo dadka u hoyanaya aad ay u yar yihiin. ciidamada Laftagareen taabacsan waxa ay sheegeen in dagaalkan sida uu u bilowday yahay ilaa inta ay ka gaarayaan hadafka iyagu ay leeyihiin ama ay gacanta si buuxda ugu dhigi doonaan magaalada Baydhabo. dagaal ayay saaka subaxii hore soo qaadeen hase yeeshee kaasi waa ay ku guul daraysteen maxaabiis tiro badanna waa laga qabsaday mar kale ayayna dagaal haddana ku soo qaadeen haatanna waxaad moodaa in dagaalku noqday dagaal gurile isla markaana aan la ogeyn xilliga ay soo qaadayaan iyo sidoo kale dhinaca markaasi magaalada ay ka soo weerarayaan. haddaba dagaalkan waxau noqday dagaal qaab jabhadayn ah ay doonayaan in magaalada ay kula wareegaan laakiin amarka la bixiyay ee villa Soomaaliya ay bixisay ayaa wuxuu yahay in la duqeymo laga fuliyo aagaga ay ku sugan yihiin iyadoo la ogyahay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamadan inay ku sugan yihiin ama ay la joogaan dad maxaas ah oo birmageedaha sida dumar iyo sidoo kale caruur. haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo xilligan halka la kala joogo dagaalkii khadhaadhaa ee maanta dib uga qarxay magaalada Baydhabo sidoo kale Laftagareen iyo weliba go'aanada markani uu hoosta ka xariiqay iyo amarka culus ee ciidamada u siiyay ayaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa. saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalka noo gareeya si sheer gareeya oo la wadaaga saaxiibadeen si goor walba wararka iyo macluumaadka halkan aan ku baahinay idin soo gaaraan aad ayaa u mahadsantihiin. waayahay aynu ku horeyna daawadayaal dagaal kharaar oo saaka dib uga qarxay magaalada Baydhabo waxa uu sababay khasaare iyo sidoo kale dhimasho la gaarsiiyay ciidamada taabacsan Laftagareen. waxaana madaxweynaha muddaxileedku ka dhamaaday xasan sheekh maxamuud oo haatan ku sugan dhanka maamulka Galmudug oo amray in la geeyo halkaasi diyaaradaha F-16ka oo dhawaan Turkidu ay markaasi ku caawiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. horay maamulkii hore ee xoogga loogala wareegay Koonfur Galbeed ee uu hogaaminayay Laftagareen ayaa waxa ay ku eedeeyeen dowladda Turkida in markaasi diyaaradaheeda loo adeegsaday dad shacab ah oo markaasi birmageeda ah oo ku sugnaa aagaga ama duleedka magaaladaasi Baydhabo. haddaba sida wararka ay sheegayaan villa Soomaaliya ayaa waxa ay amartay kadib codsi u gudbiyay Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo gabaad ka dhigtay magaalada Muqdisho in halkaasi la geeyo hub culus iyo sidoo kale diyaaradaha F-16 kuwaasoo loogu talagalay la dagaalanka kooxaha argagixisada ah. waxaana markani muuqata in cabsi xoogan uu ka muujiyay sii joogitaanka magaalada Baydhabo Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo dhawaan markaasi loo doortay ama loogu caleemo saaray in uu sii hogaamiyo maamulkan 5 sano ee soo socota. markani Baydhabo waxa ay noqotay meel si weyn loogu loolamayo oo ciddii u hadho un markaasi ay guuleysan doonto. haddaba Laftagareen waxa uu doonayaa in dib uu u qabsado magaaladani Baydhabo hase yeeshee Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobena waxa uu rabaa inuu difaacdo gacan ku haynta magaaladaasi. ciidamo aad u tiro badan oo kuwa xoogga dalkaas kuuna jira Gorgor iyo Haramcad iyo sidoo kale ciidamo gaar u ah Aadan Madoobe ayaa ku sugan magaaladaasi waxaana markani ciidamadaasi amar buuxa lagu siiyay in aysan sugin weerarka uga imaanaya ciidamada Laftagareen ee iyagu ay baxaan isla markaana ay ka hortagaan duulaanka ka dhanka iyaga lagu soo qaadayo. dagaalkii saaka subaxii hore la soo qaaday ayaa waxa markaasi ay guul ka sheegteen ciidamada dawladda iyaga oo soo bandhigay maxaabiis ku dhawaad 20 ah
kuwaas oo ay ka soo dhex muuqdeen saraakiil dhowaan markaasi ku biiray ciidamadaasi lafta gareen toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaysanayay ciidamada markaasi ku biirayay ciidankaas lafta gareen ka amar qaata kuwaas oo ka baxaya dhanka aadan madoobe iyaga oo ciidamadaasi ay muujiyeen dhibaato iyo walaac ay ka qabaan la sii shaqaynta ciidamada dowladda iyo sidoo kale maamulkaasi cusub dhammaadkii maarso ee sanadkan 2026 ayay ahayd markii lagala wareegay aadan madoobe magaaladaasi baydhabo hase yeeshee intaasi wixii ka dambeeyey ciidamada la magac baxay badbaadada koonfur galbeed oo ahaa kuwii lafdhabarta u ahaa dagaalkii lagaga bixiyey lafta gareen magaalada baydhabo in aan wax mushaar ah la siinin oo sidoo kale dhammaan ballamihii iyo ballanqaad kasta oo loo sameeyey looga baxay xasan sheekh maxamuud shakhsiga uu rabay ayuu u doortay koonfur galbeed hase yeeshee rag badan oo markaasi halgankani qayb ka ah islamarkaana u arkayay haddii uu isbeddel dhaco lafta gareenna meesha la dhaafiyo in fursado waaweyn ay heli doonaan iyo darajooyin ayaa gebi ahaanba markaasi lagu iloobay bannaanka oo albaabada laga soo xirtay waana midda sababtay in ciidamadaasi ay dib ula midoobaan ciidamadii xoogga looga saaray magaaladaasi baydhabo dabcan haatanna markaasi ka amar qaata lafta gareen mas-uuliyiin iyo sidoo kale xildhibaano iyo wasiiro ka tirsanaa maamulkii lafta gareen ayaa waxa ay ku sugan yihiin duleedka magaalada baydhabo kuwaas oo iyaga ah kuwa ciidamadani abaabulaya sidoo kalena dhiiri gelinaya dadka shacabka iyaga oo markaasi ka codsanaya in marnaba aan la isdhiibayn sidoo kalena aan la aqbalin gumaysiga waxa ay ugu yeedhaan iyagoo sidoo kale sheegay in xasan sheekh maxamuud uu doonayo in uu isku laayo oo isku jabiyo dadka shacabka ee reer koonfur galbeed xasan sheekh maxamuud waxa uu markaasi isagu dhowaan halkani uu ka qabtay doorasho isaga u gaar ah oo heshiis lagu ahayn taasi oo ugu soo doortay ama uu u gartay in aadan madoobe halkaasi uu geeyo una noqon karayo ninka la shaqayn karaya 5 sano ee soo socota haddaba xaaladdu way isbedeshay ciidamada markaasi ka amar qaata lafta gareenna waxa ay wacad ku mareen inta hal shakhsi uu markaasi ka nool yahay in aysan dayn doonin weerarada ay ku ekayn doonaan fadhiisimaha iyo xeryaha markaasi ay ku sugan yihiin ciidamada ay ugu yeedheen salballaar labo haddaba dagaallo kharaar ayaa dib markaasi uga qarxay deegaanadaasi koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo taasoo ka dhigan in wakhti kasta si buuxda loogala wareegi karo magaaladani baydhabo ninka la yidhaahdo aadan madoobe maalmo ka hor sida aan idiin sheegnayba aadan madoobe waxa uu yidhi cabsi xooggan ayaan ka qabaa weerarada joogtada ah ee markaasi ay nagu hayaan ciidamada markaasi lafta gareen dowladda federaalka ee soomaaliyana war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay markaasi ku sheegtay ama ay ku tilmaantay in ciidamadaasi ay yihiin kuwo argagixiso ah oo sidoo kale ay ka garab dagaalamayaan kooxaha markaasi khawaarijta ah markani ma aysan kala saarin ciidamadaas oo ah kuwa doonaya wixii xaqa ay u lahayeen inay dib u helaan iyo sidoo kale kooxaha nabaddiidka kuwaas oo dhibaato xooggan ku haya dadka shacabkaha ee markaasi Soomaaliyeed haddaba goor walba isbeddel ayaa dhici karaya dagaalkanna waxaa markaasi ku guulaysan karaya kolba cidde gacanta ku dhigta magaalada baydhabo haatan magaalada baydhabo waxaa si buuxda gacanta ugu haya inta markaasi aanu ognahay wax gadaal ka soo bixi doona mooyaane ciidamadii horeyba u haystay ee dowladda iyo maamulka aadan madoobe laakiin waa mid laga cabsi qabo in waqti kasta lagala wareegi karayo waxaan jeclahay muuqaalkan daawadayaal inaan markaasi ku soo gabagabayno qaar ka tirsan mas-uuliyiintii hore ee markaasi ka tirsanaa maamulkii lafta gareen oo dagaalka kadib iyagana qaarkood ay hadleen iyo khudbadihii maalmihii u dambeeyey ee abaabulka ay ku jireen ay ka jeediyeen furimaha hore ee dagaalka iska darag ma bani aadanka ko dhato wala ku fahmay ko nirida ku kooye marka walka dhaafi male degmideeda hukumaasiya roogna ilkala malaka dhawaay ay tuulooyinkii iyo naytoy xaafadoogii bayna u geed kumida ka dhawaay faayna kooyo ka faraxsana reer gal waa toonayni garabno ma gon ahaayeen mas'uulnimada madal ku reeba qabiila matalaasi anigee ka baalaan hukumaatu to reer bay hade aniga naytoy walaalkay yar roognay reer dumaal inta ku sugaan ilaahay idin shay iyoon iniyo kooyan qeyb ku nagadan halgan ka dib xoreynta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya reer dumaal ku baadana waanjal iyana inta ku sugaan
marka bariyay dowladnimo faylo oo tii hore oo nahaysan fayloodi ku si faylele dhisidon reer dumaal walilana kooy waanjale walilana kooya hadhow madin bedelkii halgamii dowladnimo dhisada digri mirflayd istajar wal dhisada shiriidana maynanay ku tabi antarana halka ka giba kunagada degmadii adinoo ka damboyti adinin ku warantay walaa ku bi adiku sheeg waa ko bi adinin ku warama doonta so kooban wala mas'uuliyiintan inta dhon israakiilinga ciidankan iyo intan rogan hal u jeedu araadan unille ilaahayna makali deegaanka beledii baadiibu unille qabil duulaan malka shakhsi duulaan maka iini laakiin wal Puntland iyo nay Jubbaland diideen oo ay rang xaga aan lana inuu ismaamul deegaanadan dastuurkaniin ogol inay irbasungel laha qaada reer koonfur galbeed la tijaabiyo diidni han beenta dadka in sheega hebele wala diidinye reer hebele la diidinye lana la diidinye meelin maroob ama ki edar doron oo damiiran lahayna dadshay iyo nay dalshay in ku nahan dulaal oo duga kala intii horka dalkan sheenow wal diide magariyaan banaanka la surugna afka ka diidan qalbiga ku diidan guriga ka diidan oo ilaahay rab dawka haydi buur hay koy kun qor baakam ay kun qor baasuuga ay kun qor aake wahayd tumishan qof hakiin batay tumishan digo fada kiin bati daaslaan eegan in ko ani daasun in gan lamba sirkaal yada daw kiirin ale umad sheegeedii abdifaadir mahmudan leere bili July 7 la gobad soddon maalmood ka gulmiisiin ka jirka ka jaran hilbaankii tolku beeta walaan gobatay dan gobeelun hilbaanga nga halle maxamed abu qurayrayan yaa min horaadi qoraalka idiire aragaay alagaab hay hisaabtama idad kale da jaradlata ya qoraalka aragaay anan dilin hisaabtan adilki hisaabtama tolkun lamasin i wal ya ol giliidi tolki habaabid madi tolka habaabidi tolki hilbaanga anshaantay wasiira anshaantay gadoomi degma anshaantay may tolkun qobati tolkun adada ka aragi shansin ya hilbaanga ta tolkun dhibaatilay kuwada ol lay giliyaas ma dheefa man shaanaso dawka haydi buur hay koy kun qor baakam ay kun qor baasuuga ay kun qor aake wahayd tumishan qof hakiin batay tumishan digo fada kiin bati daaslaan eegan in ko ani daasun in gan inuu halgan kuna mardi aras day bardaal gadoomi ku ayaan halgamaanay madabi ku labaadiya farsaaq ay dudu iyo hadu dooga dareerob alagaaba la hisaabtama erti amada in hisaabtan adida ki hisaabtama tolku hoobad hilbaan shaanti hoobad wasiirin shaanti hoobad gadoomi shaanti tolku walaadan qobati sheek tolkiyo madida ku gudub hilbaan eeta lamba sirkaal yada daw kiirin ale umad sheegeedii abdifaadir mahmudan leere bili July 7 la gobad soddon maalmood ka gulmiisiin ka jirka ka jaran hilbaankii tolku beeta walaan gobatay inuu aayaan ku talan maslaxada tiidaan ku talan go'aankaana ku deeri tan kale godobka kiimay aha lango sirkaal iska sheegay sidii shalay bardaale ka hadalaasi sa shaydaan boordo iyo muslim man hadladaaso idin last best ligriyaha mashaarka aadaya muaaradka darbiya deerti muaarad miyini maykilana eedan shalay walaalay dili walaalkay aadee dili inaadee dili dadkeeda dhamayti dadkii magi jaardan aad ku qaadati dhibaatadii waxa horta suru dadkeeda dhamayti daa surunta mas'uul ahlata may weelaas he afkadoo gaabsad afkadoo rad bardaalana aad ku fadaan hansoo noo fadno kooy korn hagal korn saadifan iroogaano ka taala dad shaydaan boorday madii aan dadta afligaadada daas aridu birkaasun kuba may kala la hadlay namanto shalmay geera dilaysaaga anale oo hadlaayeen bardaala leysaaga leh bardaala leysaaga balle bardaala afar heerbay ileysaaga asdade haddii dadku muslimka loo gaamiyo qaabana loo gaamiyo afar heerbay hargaanshoona walaay geetala siingalahadi quraan lahadaas hadii ilaahay garaan naga laakiin halgankan insha Allah oo geekan horeey madaxweynihii oo dowladda koonfurka madaxweyne laftigaran horeey saraakiish may baan tutubun iyo askarta ciidankan horeey dadka may baan naftooda horyaalka in may baa ka dul qaadan adooga may baa ku duuli deegaanada koonfurka beet in may baa insha Allah ku dul qaadan may baa diyaarin inta may baan suruyin ciidanka faraxsan geek may baa yani beert dadka la shaqeey jirtay ani may baa saaxiibkay muddo 10 sano ku dhow may baa wada shaqeeyay maamulkaas may baa ku wada shaqeeyay qaabkuna ku wada shaqeeyay iyo nidaamkii geekan shaqeey geekan may baa wala meeliyal may baa wal oo la aragayo oo muuqdu anaankii dawladeed oo may baa koonfurka beed oo dhan oo la dhisay tumid orkasan la dhisay khadka may baa ku saari dad muwaadiniinta sheegeen oo horeyn may baa wadankan qalan galeen hadan qaladka may baa marlamaad may baa marsidaad may baa galeen taasna markas may baa oo wadanka la ka duluna dad difaac sheen surnay dad difaacay adoo way ka difaacay
geekan may buu ahaa sidii oo lambogda kaalin sagaade laakiin bilaa burburkii siyaad bare ilaa hadda marba dada may buu ahaa hagalaay may raayso may bolko badan beedo iyo koonfur galbeed lagu xureeyay dada geekan may buu uni tookan ata uni may buu roogna barin hoob may buu khat bandadki kooy hoob laak had gudub yoona sile may buu ka jawaab doon hoob bilaar horta waa la iska haysada meenaasha may buu ma may sheegin waan nagad iyo may maaran ma sheegin may buu muwaadinu hoob soo sax ay ku koyn dangeeka diidi laay may buu ma jar laakiin sidoo kooy may bas khaldan ingus markoodan hay marlamadan hayn ingus markas may buu hawida shisheeye hawida oo isku burburi maamuladan koonfur galbeed ka burburi waa markii lamaad may buu iswaadan soo biyow taasna hadii mar raayse qofka may faylo darin oo wal badan ka bardo filashare badan la mari wal badan may buu ka bardo fayle laakiin meelada kanagna gato waxyaaba may buu oo adduunyada oo may badan kariis may buu yaa kamid ah geeka siitan sinajar wala geeka male xiligus may buu ka tabulay legacy iyo yamay bal laakiin liga may buu geeka koonfur galbeed oo may buu hana qaaday irka maraa burburiyay in rug may buu mahayn marka ilaahay may buu ka hanid may buu helan usuul raayse laakiin halgankan insha Allah oo geeka horeey madaxweynihii oo dowladda koonfur galbeed lafta garan horeey saraakiish may buu inta toban iyo askarta ciidankan horeey dadka may buu naftooda horyaalka in may buu ka dul qaadan adooga may buu ka duuli deegaanada koonfur galbeed in may buu insha Allah ku dul qaadan may buu diyaarin may buu suruyin taas insha Allah may buu maalmo kamid insha Allah may buu dhii doonto bilaar diba wadanka lagu xureey doon adooga may ka saar doon dadka may buu digil miriflaage oo may raayso qadiidan may raayso hor kooysan ama may raayso adooga may buu la jare ilaahay sin hanuuri may buu yeelana una may buu mani baraadkay gor ashar cusub oo may buu meel la dhigi ban lahayn un lay may raay may un lay log may qabto ama bug may qabto kor ashar cusub hoob la tun la bardaan wal may buu gooni may buu ma jaran wala may buu door ka shaqo lu gure oo maarne oo wadanka uu lisheeb doorshan galna ingeeg may raayso una sidii may buu oo laboratory oo kale may buu ninka tijaabi waxyaaba may buu weakness oo may buu no arag may buu ya kamid ah markasta wadanka may buu dad si may buu ya burburiye ya dhibaatee warnamiyo maysan lana hadii walaa may raayso mansab ilaahay biye darajin ilaahay biye laakiin inaysan kuwanta hutan waxyaabo nooc oo kale in warka dadka mudnilisin adeega in kuwanta may buu insha Allah may buu ya sheegan kan kan may buu saaxiibkii arab iyo saraakiishis hadhawaayana inaad geeg may buu halgankaada ka biirta iyada may buu hakin ku dhawaayana may rajaynaa inaad isbedel koy doonto maadaama magaalada ku koyti shalay may buu maamulka kamid ahayd geeg may buu walbadan ka aragtay in walbadan kor bii doonto oo dhibaato wadan geeg taalmay buu sheeg doonto insha Allah may buu ya may buu rajaynaa cid nooga wakiila inay gudoomiye baarlamaan doorato maadaama aan aaminsanayn in baarlamaan Soomaaliyeed uu jiro maadaama waqtiga ka dhamaaday ma jiro dadka reer koonfur galbeed yaana la khaldin cidaan u soo dirsanay in ay nooga wakiil tahay malaha bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ganab wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya meel walba dunida kaga nooshiin walaalayaal sida la og yahay baa daraawiishta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya muddadii la soo dhaafayba waxay u diyaar garoobayeen haddii ilaahay idmo sidii loo qaban lahaa degmada Baydhabo iyo koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo dabcan la rabo in laga xureeyo dadkii ku soo duulay ku soo gardarooday dowladnimadeenna dhaawacay sharafteenna iyo midnimadeenna intaba haddii ilaahay shacbigeena meel walbay joogaan waxaan leenahay dareenkiinu ha joogo ilaahay idinkii xilliyada saacadaha maalmaha iyo gooraha soo socdaba haddii alla idmo waa laga xurayn doonaa kuwii dalkeenna ku soo duulay ee dullaystay dadkeenna haddii ilaahay qadaro intaa kadib waxaan rabnaa inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed Soomaaliya intaba dabcan waxaan arkaynay xildhibaano ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed oo deegaan doorashadooduna ay tahay koonfur galbeed qaar ka mid ah oo magaalada xamar ka hadlay oo sheegay inay u yimaadeen inay doortaan gudoomiye baarlamaan sida iyaguba ay sheegeen hase yeeshee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ma aqoonsana baarlamaan Soomaaliyeed inuu maanta ka jiro Soomaaliya guud ahaanba sababtoo ah baarlamaanka waqtigiisu waa dhacay madaxweynaha iyo xukuumadduna malaha maandeed ay ku shaqeeyaan waxay ku joogaan xaalad iyagu ay abuurteen labadaba maandeedku waa ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyaddana waa ka dhacay xasan sheekh maxamuud baarlamaankii sharciga ahaa ee unkanka dowladnimada ahaana beri horuu waqtiga ka dhacay
ha yeeshee mudanayaasha saaxiibada nala ah ee reer koonfur galbeed oo laga doortay labada gole iyagu xaq bay u leeyihiin wax alaali wixii ummadda soomaaliyeed ay qabto inay la qabaan sida la sheegana mar dhowna la dooran doono guddoomiye annaga cid naguma tasho amaan u dirsannay ma nooga wakiila inay guddoomiye noo doortaan haddaan nahay dowladda koonfur galbeed shacbigeeda iyo dowlad ahaanba ma laha waxaa laga yaabaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanada federaalka soomaaliyeed ee deegaan doorashadiisu ay tahay koonfur galbeed inuu sheegay in uu wakiil kaga yahay dowladda koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen cidaan usoo dirsannay u wakiilannay nooga wakiila ma jirto iyagu dee waxbaa dooran karaan waxna waa diidi karaan xaqay u leeyihiin annaga reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ku taagannahay wacadkii aan dadkeennan la gallay ee ahaa inaan ka dulqaadno dulliga iyo gumaysiga duulaanka xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu ay ku soo qaadeen qowmiyad ahaan dadka reer koonfur galbeed dowlad goboleed ahaanna jiritaankeena dowladnimo ay ku burburiyeen mar kalaan ku celinaynaa cid nooga wakiila inay guddoomiye baarlamaan doorato maadaamaan aaminsanayn in baarlamaan soomaaliyeed uu jiro maadaama waqtiga ka dhammaadeen ma jiro dadka reer koonfur galbeed yaanan la khaldin cidaan usoo dirsannay in ay nooga wakiil tahay ma laha dadka soomaaliyeed meel walbo joogaanna waxaan leenahay walaalayaal sida la ogyahay baa dhowr bilood ka hor baa dadka reer koonfur galbeed duulaan lagu soo qaaday la baabi'iyey dowladnimadooda la baabi'iyey qarannimadooda la isku dayay in jilbaha dhulka loo dhigo ha yeeshee taa waxaa diiday geesiyaasha ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo har iyo habeenba u taagan inay dulligaas ka dulqaadaan dadkeena waxaan ognahay magaaladeedii sharafta banneed ee baydhabo ahayd horumarkii ka socday dowladnimadii ka socday intaba inay istaageen waxaan ognahay nolosha reer baydhabo ay cidhiiri ku jirto la baabi'iyey dhaqaalihii yaraa ee lacag soomaaliga ahayd sidoo kalena lala dagaalamay jiritaankooda sidii ay nolol u heli lahaayeen waxaan mar laba aqbalaynin shacbigeennana aan u sheegaynaa cid walboo soo gardaraysata dadka reer koonfur galbeed waxaan leenahay taariikhda dib u raaca inta duulaan lagu soo qaaday koonfur galbeed cid ka guulaysatay cid sharaf gooni ah ka gaartay ma laha iyagoo dulaysan wejigabax uu ka dhacay ayay ka laabanayeen cid kastoo kusoo duusho deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kuwa midabadeenna leh luuqadeennana ku hadla laakiin lasoo isticmaalay ee lasoo adeegsada waxaan leenahay ilaahay idinkii waxaad mari doontaan duulkii idinka horreeyey ee lasoo adeegsan jiray meeshii ay mareen biidni illaahi tacaala baydhabo iyo koonfur galbeedna waa ay xoroobi doontaa haddii ilaahay idin ballankan dadkeenna ka qaadnay ilaahayna la galnay shacbiga soomaaliyeed iyo reer koonfur galbeed aan u sheegnana marna ma baaqanayo baydhabana waa xuraynaynaa koonfur galbeedna waa xoroobaysaa waxaanan xaq u yeelanaynaa sida dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland iyo reer puntland iyo reer somalilandba ay u diideen in la dullaysto inaanan marnaba oggolaanin deegaanadeenna dadkeenna in la dullaysto oo la yidhaahdo waxaan annagu idin qarro mooyaane xor ma tihiin gob ma tihiin isma maamuli kartaa horey aan u diidnay maantana waa diidaynaa berrina waa diidaynaa ilaahay idin mar labaadii bar saddexaad dadka reer koonfur galbeed taageeradeennu waa inoo muhiim garab istaagaynu waa inoo muhiim hadduu alla idmo baydhabana waa xoroobi doontaa goraha ugu dhow iyo xillada soo socda haddii ilaahay idmo shacbiga reer baydhabo mar kalaan ku celinaynaa kuwa dullaystay xaafadihiinna ka dhigtay dhufeesyada guryihiinna burburiyey doolaalka idinkugu yimid oon deegaanka idinla ahayn ka saara xaafadihiinna bannaanka isaga saara ku mudaharaada ka bixiya xaafadihiinna hadaad iska bixin weydaan ballantii aan gallay oo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya inay idinka saarayaan aan idinla galnay waa idinka saaraynaa waana xoroobayaan waana ka saaraynaa xaafadaheenna magaaladana waa ka saaraynaa dowladnimadeennii amnigeennii kala dambaynteenii iyo gobonnimadeenni